Suugaantu waa dharka ama ceelka keliya ee aynu ka dhurano dhammaanba aqoon iyo taariikhda dadkeena. Wixii taariikh, sheeko iyo noocyo kasta oo ay Soomaali lahayd oo aynu naqaano, waxa hubaal ah inay nagu soo gaadhay faldhac ka mid ah faldhacyada suugaanta. Haddaba muuqaalkeennan ayaan kaga warramaynaa guud ahaan taariikhda suugaanta. Waxa aanad kaga bogan kartaa sooyaalka suugaanta iyo adeegsigoodii hore. Waxaan sidoo kale muuqaalkan ku qaadaa dhigaynaa doorka ay suugaanta ku lahayd kaydinta aqoonta iyo sooyaalka bulshada, si aynu u garwaaqsano meeqaamka iyo facda da'da suugaanta Soomaalida. Magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkanina waa Salgaadh Media. Dabcan waxaa jiray muuqaal aan horey ugaga hadalnay sharaxa suugaanta qaybaheeda iyo xog kasta oo aad uga baahan tahay suugaanta. Waxaan kugula talin lahaa inaad soo daawato muuqaalkaas. Suugaanta Soomaalidu waa suugaan mug weyn oo la faca suugaanta afafka caalamka, waxaana suuragal ah inay ka fac weyn tahay qaybo badan oo afafkaas ah. Tan iyo ilaa waqti aad u horreeyay, bulshada Soomaalidu waxay caan ku ahayd hal-abuurka gabayada, geeraarada, sheekooyinka iyo noocyada kala duwan ee suugaanta, taasi oo qayb ka ahayd nolosha maalinlaha ah ee bulshada. Odhaahda, afka iyo xigmaddu waxay ahaayeen nidaam bulshadu isugu gudbiso farriimaha, dhacdooyinka iyo wixii la mid ah. Dadka Soomaalidu waxay leeyihiin tiro aad u badan oo abwaano, gabya, hal-abuur iyo suugaanyahan ah, kuwaas oo ku kala nool dhammaan geyga bulshooyinka Soomaalidu ku dhaqan tahay. Adduunka suugaanta daabacan, gaar ahaan maansada, Carab ayaa leh suugaanta ugu fac weyn adduunka, iyadoo noocyo badan oo kala duwan ay jirto. Suugaanta Carbeed, Soomaalida dhulkeeda oo khariirad ahaan dhaca dariska khariirada Carabta, ayaa waxaa jirta in Soomaalidu ay sida Carabta qiimo badan suugaantu u leedahay, iyada oo dhaqan iyo hiddaha soo jireenka ah ee habka soo gaadhka ah ay inta badan ku dheehan tahay qadarinta suugaanta. Waxyaabaha kale ee dhaqanka Soomaalida lagu yaqaan waa gaare. Bulshada Soomaalidu waxay ku caan tahay suugaanta iyo sooyaal odhaaheed, iyada oo loogu magac daray qarankii gabyaaga. Suugaanta Soomaaliyeed qarniyo badan muddo laga joogo ilaa iyo haatan, waxay suugaanta Soomaaliyeed door lixaad leh ka qaadatay kobaca dhaqanka iyo mideynta bulshada, sida ka muuqata qaar ka mid ah hees-hawleedda Soomaalida, sida heesta Maqasha ee Maqalay Warlaay. Suugaanta Soomaalidu waa suugaan mac weyn. Nasiib darrase, suugaanta badankeedu way luntay sababo jira awgood, balse waxaa jira suugaan badan oo la dhaxlay oo ay ka mid yihiin hees-hawleedda, maahmaahyada, sheekooyinka oo aan la garanaynin cidda tirisay iyo goortii la curiyey toona. Taariikhdu markay ahayd 1506 oo ku beegan sanadkii uu dhashay halgamaagii weynaa ee Imaam Axmed Gurey oo suldaan ka ahaa boqortooyadii Cadal. Sida ka muuqata qaar ka mid ah qasaa'idka ama heestiimeedka, waxaa dhacdo ah in la tiriyey suugaan badan oo guubaabo iyo habaarba isugu jira, sida heesta xilliyadii carruurnimada laga qaado deegaanada Soomaali galbeed oo ah bishii bilataba badh baa ka hadhay allow xabashida xabaal ku rid. Haddaba suugaanta la'aayo beddelkeeda waxay ka soo baxday intii ka dambeysay qarnigii 18aad oo ku beegan waayihii ay noolaayeen Sheekh Cabdiraxmaan Saydici, Sheekh Uways iyo Sheekh Cabdiraxmaan Suufe. Waayihii dhexe oo ku beegan qarnigii ay noolaayeen Wiilwaal, Ugaas Nuur, Ugaas Rooble, Aabbayaashii iyo Awoowayaashii, Raage Ugaas iyo Sayid Maxamed Cabdulle. Raggii ay isku waqtiga ahaayeen oo hadda laga joogo 2 qarni iyo bar ama ku beegan 1770-nadii. Intaa kadib ayaa waxaa soo baxay hobalada loo yaqaan ee ku caanbaxay suugaanta iyo maasada noocyadeeda kala duwan, sida gabayga, geeraarka iyo wax la mid ah. Ku dhowaad muddo 190 sano ah ayaa kasoo wareegtay markii gabay loo adeegsaday meeriska Hoyaalayey, oo iyada oo uu Raage Ugaas Warfaal lahaa gabaygaasi. Taas waxay noo caddaynaysaa in ugu yaraan 6 qarni muddo ka badan suugaanta Soomaaliyeed ay si hufan u jirtay, waagaasna soo gaartay heer aad u sarreeya. Suugaantu waa mid ka mid ah tacbiir bixinta insaanka, oo ay ka mid yihiin caatifad, afkaar iyo arrimo badan oo isku guda jira. Suugaantu waxay ka kooban tahay sida alifaadda, gabayada, curinta sheekooyinka iyo qorista buugaagta. Qofka suugaanta ku shaqada leh waxaa lagu magacaabaa hal-abuur. Haddaba aanu nimaadno adeegsiga suugaanta iyo Soomaalidii hore. Suugaanta Soomaaliyeed waxay soo martay heerar kala duwan, qaybo badan oo kala duwanna way leedahay. Suugaantu waxay ahayd qalabka warfaafinta loo adeegsado, taasoo ahayd qalabka loo adeegsado gubaabada, baroorta, ammaanta, heshiisiinta, tacliinta iyo wax kastoo bulshada dareenkeeda wax ka beddeli kara ama wax ku kordhin kara. Maahmaahyada oo ka mid ah suugaanta Soomaaliyeed, aana tuducyo ama tuxasta dhambaallo aad u qaali ah oo kooban, marka la fasirana wejiyo badan yeelan karta. Intooda lama yaqaan waqti la sheegay iyo qof sheegay,
waxaase loo malaynayaa inay badi soo baxeen wakhti aan dhoweyn. heerarka kala duwan ee soo martay suugaanta Soomaaliyeed waxay la socotay taariikhda ummadda, waxayna isla beddelaysay xilliyada iyo heerarka nololeed ee bulshada. suugaantu waxay ahayd diiwaanka ugu weyn ee lagu kaydinayay dhaqanka Soomaaliyeed qiyaastii qarnigii 18aad. intii ka horreysay, suugaanta Soomaaliyeed wax sidaas u badan lagama hayo, sababtuna waa iyadoo aan la haysan qalabka wax lagu kaydiyo iyo qoraal toona. balse qarnigii 19aad suugaan badan ayaa laga hayaa, ahaato gabayo, geeraaro ama murti kaloo badan. qarnigii 20aad, suugaanta aan ugu magac dari karno haldoorka waxay ahayd mid la odhan karo waqtiga qaaliga ah ee ummadda Soomaaliyeed inteeda badani ay ku noolaayeen miyiga, halkaas oo ay xeerarkeedu, dhaqankooda iyo arrimahooda dhan ay u geysan jireen suugaanta, ha ugu badnaado gabayga, geeraarka, gurowga iyo buraanburku. qarnigii 20aad dhexdhexaadkiisii, waqtigii gumaysiga lala dagaalamayay, suugaantii la tiriyey inteedii badnayd waxaa lagu duubay cajalado, sidoo kale waxaa lagu sameeyey qoraal ama kayd buug ahaaneed, waxaana laga hayaa qaybo badan oo ka mid ah dhammaanba badaha maansada sida gabayga, geeraarka, gurowga, buraanburka, jiiftooyinka, heesaha, ciyaaraha kala duwan sida sayliciga, saddexleyda, saddexdhexaada, shaxleyda, dhaantada, hirwada, gabla shimbirta, walaqsiga, hareymaha, botarka, waalada, kabeebeyda, dafka iyo kuwo kaloo badan. haddaba dhammaan noocyadan maaso ee kor ku xusan waa kuwo ay Soomaalidu u isticmaali jirtay gebi ahaanba duxaha kala duwan ee nolol maalmeedkooda, gaar ahaan oo ka mid ah ilaa iyo hadda si toos ah ayaa loo isticmaalaa ama aynu isticmaalnaa. Soomaalidii hore suugaanta waxay u isticmaali jireen dhammaanba waxyaabaha khuseeya noloshooda, waxaana ka mid ahaa xidhiidhka bulshada, guubaabada iyo wacyigelinta, garta iyo baanaha, kaydinta aqoonta iyo taariikhda, ammaanta, xayeysiinta, caanaynta, faanka, waanada iyo wixii lamid ah. hase yeeshee, qodobka ugu muhiimsan ee ay Soomaalidu u isticmaali jirtay suugaanta waxaa ka mid ahaa warfaafinta ama warisgaadhsiinta, guubaabada, maslaxada. haddaba haddii ay bulshada Soomaaliyeed suugaanta u adeegsato qodobadan kore ee wax ku oolka ah iyo qaar kale oo la halmala, bal isweydii su'aalahan: suugaantu qiimo intee le'eg ayay ugu fadhidaa bulshada Soomaaliyeed? haddii ay meesha ka baxdo suugaantu, maxaa dhacaya? haddii la kobciyose, maxayna dhaxalsiin doontaa? maadaama suugaantu ay tahay hanti dadweyne, waa ayo cidda uu daryeelkeedu saaran yahay? aragtiyahaaga nagula wadaaga qaybta hoose ee kommentiga. haddaba aanu nimaadno kaydinta aqoonta iyo dhacdooyinka suugaanta. haddii aan soo qaadano kaydinta aqoonta iyo kaalinta ay suugaanta ku leedahay, waxaa kaaga filan fahmidda murtida ku jirta hal maahmaah oo Soomaali ah, iyo sidoo kale qiyaas ahaan da'da ama qarniga maahmaahdu soo baxday, oo aad ka dhexdhexan karto muddada la tiriyey murtida kooban. tusaale, nimaan dhul marin dhaaya ma leh, hadalintuu afkaada ku jiro ayuu ammaanadaada yahay. balaynu soo qaadano hees ka mid ah hees hawleedyada maqasha, kadibna aanu falaqayno kaydka taariikheed ay xambaarsan tahay. maqalay warlaay ma lagu warramay ina Cali la dilay oo Cumar la dilay, oo dhiig qulquray oo waran dhul galay? maye waa ii warramay oo ma walaalkay weynaadayoo waale tishiya webi iiga yimid. sida ku cad meerisyada heestani waa hees dhiilo xambaarsan oo sheegaysa 1400 oo sano ka hor wixii dhacay. xaligii Cumarka la dilay ee sheegaysaana waa Cali bin Abi Taalib iyo Cumar bin Khadaab. haddaba miyaysan tani noqon karin daliil cad oo inoo sheegaya facdheeraanshaha suugaanta Soomaaliyeed? intaas ayaan kusoo afmeeraynaa muuqaalkan aynu ga hadlaynay taariikhda suugaanta Soomaaliyeed. haddii uu muuqaalku waa qanciyey, like saar, siina sheer gare. haddii aanad weli nagu soo biirin, nagu soo biir oo ka mid noqo bahdeenna.